Salaamullah saaxiibayaal, waa idin salaamay dhammaantiin. Ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay cyber security. Waa maxay cyber security? Noocyada cyber crimeska, dambiyada kala duwan ee ay sameeyaan dadka cyber criminalska, maxay u kala baxaan? Sidee lagu baran karaa cyber security? Macluumaadka soo dhameystiran waxaad kaga bogan doontaan muuqaalkan ee daawasho wacan. Cyber security waa farsamo loogu talagalay in lagu ilaaliyo network, program ama data ama macluumaad sida u taqaanaan, ayadoo laga ilaalinayo weerar xagga internetka uga yimaada ama in waxyeelo loo geysto ama damage loo geysto, ama sidoo kale dad aan loogu talagalin inay helaan. Ganacsatadu waxay shaqaaleysiiyaan dadka ku takhasusay cilmigan cyber security-ga si ay u ilaaliyaan macluumaadkooda khaaska ah, taasi oo sare u qaadaysa kalsoonida macaamiisha ay ku qabaan adeegyada kambaniga. Dunida cyber security-ga waxay ka kooban tahay 3 waxyaabood oo la iska yiraahdo CIA triad, taasoo laga soo gaabiyay confidentiality, integrity iyo availability. Dhammaantood waxay hoos imaadaan qayb ka mid ah cyber security-ga oo la yiraahdo information security. Midda ugu horeysa oo confidentiality ah waxaa lagala jeedaa daatada ama macluumaadka waxaa heli kara kaliya dadkii loogu talagalay, qof kale ma heli karo. Dadkii loogu talagalay kaliya ayaa heli kara daatada. Integrity ayadana waxaa laga wadaa macluumaadka waxaa wax ka bedeli karo ama wax ku dari karo kaliya dadka loogu talagalay. Micnaheedu waxay tahay qof aan fasax u haysan waxba kuma dari karo, waxna kama reebi karo. Availability oo midda saddexaad ah ayadana waxaa laga wadaa systemka ama daatada waa in la heli karaa xilliga loo baahdo, xilli walba loo baahdo oo la dalbado waa in la heli karaa systemkaaga ama macluumaadkaaga ama servicekaaga. Cyber crimes ama dambiyada cyber crimeska ah maxay yihiin? Waa fal aan sharciyeysnayn oo lagula kaco computer, network ama agab kale noocuu rabo ha noqdee. Falalkan ayaa ah kuwa aan loo amar weydiisan dadka iska leh computerka ama isticmaalaha computerka. dabcan ayadoon fasax laga qaadanin qofka computerka isticmaalayo ayaa lagu soo galayaa computerkan si uusan ogeyn qofka wax isticmaalaya, isla markaana waxaa loo dhici karaa computerkiisa asagoon ka warheynin. Dadka cyber crimeska sameeyo waxay isticmaalaan farsamooyin ama taktikooyin kala duwan. Farsamooyinka isticmaalaan waxaa ka mid ah denial of service. Hackerka wuxuu la wareegayaa gacan ku haynta service-yada. Badanaa waxaa loo adeegsadaa weerarada noocaan ah website-yada ama computerka gacan ku hayntiisa. Kadibna shakhsiga iska leh awood uma yeelanayo inuu sii isticmaalo service-kaas ama computerkaas. Farsamada labaad ee isticmaalaan waxaa la yiraahdaa malware. Markaan hackerku wuxuu adeegsanayaa virus kaasi oo waxyeelin u geysan karto computerkaaga. Midka saddexaad ama farsamada saddexaad waxaa la yiraahdaa man in the middle. Hackerku markaan wuxuu dhexda ka galayaa computerka, dhibanaha iyo routerka, kadibna wixii macluumaad ah dhexda ayuu kala baxayaa. Midka afraad waxaa la yiraahdaa phishing. waa dabin lagu dhigay ayadoo lagu soo dirayo email u eg mid sax ah laakiin aan ahayn. Tusaale waxaa la isaga dhigi karaa YouTube ama Facebook, kadibna markaad ka falceelid emailkaas macluumaadka lagu weydiina aad gelisid, hackerku wuxuu helayaa macluumaadkaas aad gelisay meesha, sababtoo ah ma ahayn mid sax ah, email sax ma ahayn oo asaga ayaa kuu soo diray emailkaas. Noocyada kalena waxaa ka mid ah ay isticmaalaan farsamooyinka ay isticmaalaan ah cross-site scripting attacks, wax la yiraahdo password attacks, SQL injection iyo kuwa kale badan. Noocyada hackerada waxay u kala baxaan black hat hackers. Black hat hackersku waxay isticmaalaan aqoonsi been ah, kadibna waxay sameeyaan falal ay isleeyihiin faa'iido ayaa ka sameyn kartaan, sida inay lacag ka sameeyaan oo kale. Kuwa labaad waxaa la yiraahdaa grey hat hackers. Qaab tuuganimo ahna way u shaqeystaan, sidoo kalena qaab sharciyeysan way u shaqeeyaan oo waxaa jira qaar security analyst ah. Sidoo kale midka saddexaadna waxaa la yiraahdaa white hat hackers. Waxay u shaqeeyaan qaab security analyst ah ama waxay taxliiliyaan waxyaabaha ku saabsan dhanka ammaanka, taasi oo sahlaysa inay ogaadaan ama ay xaliyaan falalka ay geystaan hackerada. Kuwa kale waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee hackerada waxaa ka mid ah suicide hackers ku yiraahdo, cyber terrorist, state sponsored hackers iyo hacktivist. Sidee ku baran kartaa cyber security? Inta aad u guda galin barashada cyber security-ga marka hore waxaa muhiim ah inaad leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan IT-ga ama teknoolajiyadda guud ahaan. Kadib waxaa ka soo bilaabi kartaa qaybta basic-ga ah oo aasaasiga ah si ay hadhow wax kuugu adkaanin.
marka hore waa inaad barataa networking-ka oo basic ah, sidoo kale waa inaad aqoon u leedahay Linux, Windows ama Unix. waxaa muhiim ah inaad kala dooratid qaybta aad rabto inaad baratid. waxaa jira qayb offensive ah iyo qayb defensive ah. qaybta offensive-ka ah waa dadka sida sharci darrada wax u hagareeyo ama ayadoon dadka amar weydiisan in computer galo. Defensive-kana waxaa waaye kuwa wax protect gareeyo oo computerada ka ilaaliya hakarada. waxaana ka heli kartaa labadan waxyaabood ama aad ka baran kartaa website-ka la yiraahdo tryhackme.com. sidoo kale waxaad baran kartaa Security Plus oo certification-kooda ay bixiso company-ga la yiraahdo CompTIA Security Plus ayaa qaadan kartaa. asagana waa beginner, waxay ka caawinaysaa inaad wax badan oo cyber security ku saabsan ama hacking-ka aad fahantid. sidoo kale waxaad baran kartaa Certified Ethical Hacker oo ayadana ah qaybta intermediate-ka oo dhexdhexaadka ah. kadib markaa ka soo gudubtid intaas oo dhan waxaa u imaanaysaa qaybta advanced-ga ah oo ah Certified Information System Auditor, sidoo kale Certified Information Security Manager oo ah advanced level-ka. sidoo kale qaybta expert-ka ayadana Certified Information System Security Professional ayaa jirto. website-yada aad ka baran kartid cyber security-ga waxay kala yihiin midka ugu horeeya oo ah tryhackme.com, Coursera, simplilearn.com iyo kuwa kaloo badan. dabcan haddii aad Google ka baartid cyber security learning platforms ama learning websites-ka waxaa ka heli kartaa Google-ka ama YouTube-ka. sidoo kale YouTube-ka waa lasoo dhigaa ayadana casharo goosgoosa ayaad ka heli kartaa. waxaan filayaa muuqaalka inuu ku anfacay. haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalka like saar, wixii fikir iyo fariin ama su'aal aad noo haysidna commentiga noogu reeb. sidoo kale haddii jiraan saaxiibadan ay arrimahan la sii wadaag muuqaalka oo share leh. intaan ku kulmayno muuqaalka waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.